sanadkii aynu soo dhaafnay dhammaadkeeda waxaa magaalada Bergen lagu doortay gudoomiyaha cusub ee maamulka jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Fastland ayaan Macalin Cabdulle waxaana magacaabistaasi ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ku dhaqan magaalada Bergen ee dalka Norway iyadoo dhammaan dadkii ka soo qayb galay iyo bulshada ku nool magaalada Bergen ay ku faraxsanayeen qaabkii ay u dhacday doorashadaasi balse waxaa jira warar hoose aan helnay oo sheegaya in gudoomiye ayaan qaar ka mid ah xubnihii loogu talagalay inay la qabtaan howlaha jaaliyadda si shaqada halkeedii ugu sii socotay ay qaarkood ka gaabiyeen la shaqaynta gudoomiyaha haddaba si aan wax badan ugu ogaano caqabadaha jira iyo shaqada jaaliyadda halka ay marayso waxaan wax ka weydiinay gudoomiye ayaan Macalin Cabdulle oo aan ku booqanay hooygeeda magaalada Bergen bila waa ku maasan tahay booqashadana soo booqatay arinta jaaliyadda hadda meel fiican ay ku socotaa inkastoo iska jireen caqabado yariis oo nala soo gudboonaaday laakiin badankood hadda waa la soo gudbay shaqada jaaliyadana masha Allah si fiican wada fiican ay hadda ku socotaa cabashooyin aad ka gudbisay kuwa adiga kula shaqeyn waayay ama aad u aragto inay caqabad ku yihiin howlaha jaaliyadda ee loogu talagalay inay kula shaqeeyaan ma jirtaa way jiraan caqabada oo jaaliyadda la soo kulmay oo ka gudbiyay waxaana u gudbiyay koolaha shuurada u gudbiyay waxaana ku saleysneed sirta jaaliyadda iyo wada wixii jaaliyadda laga hadlo oo banaanka la geenay ayaa ka gudbiyay iyo nidaamkii xeerka jaaliyadda u yaalay taasna waxa ugu dan lahaa marka koolaha shuurada u diray in nidaamka iyo xeerka jaaliyadda in la ilaaliyo oo sida uu sheegayo lagula dhaqmo markii lagu doortay kadib waxaa lagu tirinayay in lagu wareejiyay maamulka jaaliyadda Bergen haddii ay ahaan lahayd xafiisyadii akoonadii bangiga ee u lahaa jaaliyadda iyo dhammaan dukumentiyada oo dhan maxaa lagu wareejiyay oo aad inala wadaagi kartaa maxaase weli dhankaaga aanan ku soo wareegin oo ka maqan ahaantii waa su'aal wanaagsan waana su'aal muhiim ah inay ogaadaan dadweynaha ama bulshada Soomaaliyeed oo degan Bergen nawaaxigeeda in yani aniga marka gudoomiye ahaan lii doortay waxa liigu soo wareejiyay iyo wixii aan liigu soo wareejinin taasna waxay muhiim saad u sii tahay marka waqtigeyga dhamaado xil wareejiska imaado yani in la ogaado shaqada inay naaqustay ama inaa kordhiyay saas daraadeed marka muhiim u tahay inaa ogaatiin yani hadda waxa liigu soo wareejiyay iyo wixii kaleeto taas waa mid qodobka kale ee ka hadla marka aniga gudoomiye ahaan lii doortay waxay ahayd in lagu soo wareejiyo koontada ama akoontiga oo maamulka jaaliyadda team baraha jaaliyadda iyo waxay ahayd laptop oo jaaliyadda leedahay intaasba waxaa ii sheegay gudoomiyihii hore inuu haayo intaasoo jeer baa yaa wacay isla hadalnay in ku soo wareeji laakiin uu ka meereystay saas daraadeedna weli iima suurtagalin inuu inuu ku soo wareejiyo laakiin insha Allah waxaa ii suurtagashay aniga inaa soo wareejiyo akoontiga maamulka jaaliyadda u yaala anoo oo isticmaalayo xaqa aan u leeyahay gudoomiye ahaan anoo isticmaalayo oo bangiga la hadlay systemkii in oo koontadii lagu soo wareejiyo oo jaaliyadda lahayd taasna waa alxamdulillah inta hadda hartay marka su'aasha maxaa iga maqan marka hadda waxa iga maqan waxa waaye waa team bari jaaliyadda oo muhiim ah sida ogtihiin badii qof community-ga kamid ah adu u baahda caawinaad ama dan ka soo gasho in saxiix camal ama astaanta dhameed waayo oo jaaliyadda loogu dhufan karo oo la caawin karo saas daraadeed ay muhiim u tahay mid kalena waxa waaye waa laptop kan muhiim u yahay shaqada jaaliyadda hadii dad loo caawinayo hadii shaqada jaaliyadda loo horumarinayo taasna waa muhiim marka hadda waxa insha Allah waxaan rajeynayaa labada shay hadda maqan in waqtiyada soo socda in insha Allah lagu soo wareejiyo insha Allah saas waaye meeshaasna shaqada ka sii wadno waa garta aad u mahadsan tahay ayaan adigu hami intee la eg ayaa kugu jirta in maamulka jaaliyadda ee lagu doortay inaad gaarsiiso maadaama sida aad sheegtay jaaliyadda aysan xafiis lahayn magac jaaliyad kale lagu wareejiyay hamiga shakhsiyadeed kugu jiro intuu la egyahay ku maasan tahay waa su'aal wanaagsan
hami horta waxay ku jira hami maasha allah weyn ay ku jiro sida ogtihiinba jaaliyadda mala xafiis marka aniga hamiga u horeeyo hamigayga u weyn ama waxa u horeeya inaan ka shaqeeyo waa inaa xafiis la helaa si aniga dadka iga soo raadinin gurigayga ama meelo kaleeto laakiin in la helaa xafiis oo dadka baahida bulshada Soomaaliyeed oo waliba Bergen iyo nawaaxigeeda degan oo baahidaas loo tirtiri karo inay helaan xafiis oo qof kasta u baahan laga caawin karo xafiiskaas oo isagana howlaha jaaliyadda loogu adeegi karo saas waay marka hamigayga meeshaas waay kan koowaad ka bilaabi doono maasha allah taas heer sare gaari karnaa xafiis mehe ka badan gaari karnaa taas oo waxa ku wada gaari karnaa midnimo wada jir ayaa ku gaari karnaa waxa waaye hadii saani sheegaba dii la helo dad oo daacad ila shaqeynayo hadda waxa ahay shimbir hal baal ka maqan laakiin markaas waxa noqonaa labadeeda baalal baa helaya wada jir iyo wada jirna marka isla wada shaqeeyo heer sare gaari karnaa inta hadda joogno 100 jeer ka badan yaa qaban karnaa maxaad ugu baaqaysaa Soomaalida ku nool magaalada Bergen oo aad adigu gudoomiyaha u tahay bulshadayda Soomaaliyeed oo Bergen in waaxiga degan waxa uu baaqayaa in nin kasta kaalintiisa uu ka qayb qaato jaaliyadda sida ogtihiinba jaaliyadda maaha waxaan leeyahay ama wariyaha uu leeyahay ama qof kale xaga joogo leeyahay jaaliyadda waxa way Soomaaliya oo dhan ka dhaxaysa waliba Soomaalida Bergen in waaxigeeda degan saas daraadeed waxa leeyahay in qof kasta uu is xil saaro qof kasta is xilqaamo calaasha qof kasta uu is xilqaamo oo yani isigana wuxuu qaban kara ka qabo uu qabto muhiimadda ay leedahay walaalayaal waxa way jaaliyaddan anaka dad yani waalidiinteeni anaka hadda joogno maalaka waa inaan ka fikirnaa ibnaha inta ku dhalan doono generationka soo socdo waa inay leeyihiin jaaliyad ay ku faani karaan jaaliyad ay karaan waa jaaliyadii Soomaaliyeed taasna waxa lagu wada heli karaa wada jir يعني إذا وذا جير ليه وذا جير إسكارشي إن لو هلو ساس تراتد وحلا يقف كستو Soomaali إتجوجا وحدي وحير أما وين مجران وحكسو جاليتا كقبن كرتيز قيب تعرض كقيب كشين إن شاء الله صد الجاليد والجاليتينا wata ayaan aad u mahadsantahay aqbalaadaada inaan maanta aan guriga kugu soo booqdo wareysigan kooban aad kula yeelano aad u mahadsantahay